Habeen wanaagsan daawadayaal idilkiin ma meel walba joogtaan waxaan caawa in halkan hambaliyo ka leenahay degmada Dharkiinley oo ku guuleystay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir kadib markii rigorooyin ay u qaaday xulka ee koobkan difaacanaya ee Wabari ciyaar xiiso badan ayayna dhexmartay labadan kooxood qaybtii koowaad kulanka laba dhinac waxay soo bandhigay kubadda aad u wanaagsan balse goolasha ma aysan gaarin sidaas ayaa lagu dhagastay qaybtii koowaad 40 daqiiqo ee qaybtii koowaad 15 daqiiqo kadibna dib ay iskugu soo laabtay labada degmo waxayna caawa ka dhigtaba in 80 daqiiqo ciyaarta ay ku soo dhamaatay barbadha eber degmada Dharkiinley sanadkan waxay sameysay taariikh aad u wanaagsan iyadoo aan goolkeeda la gaarin ayay gaartay finaalka si la midna lagama adkaanin xitaa gool laga baray marka laga reebo rigorooyinka caawa laga dhaliyay laakiinse tan iyo bilowgii tartankan heerka gruubyada quarter finaalka ilaa semi finaalkii gool lagama dhalin degmada Dharkiinley lagama adkaanin taasoo caawa sababtay 8 sano kadib inay ku guuleysto koobka degmooyinka ee gobolka Banaadir degmada Dharkiinleyna caawa waxay u dabaaldegeenba koobka degmooyinka ee gobolka Banaadir kadib markii ay jareen musalsalkii socday sanadihii ugu dambeeyay 5 sano ugu dambeysay ee degmada Wabari 5 sano ayay xiriir final gaartay 3 kamid marka caawa lagu daro waa laga qaaday 2 kamid ayay qaaday waxayna ka qaaday Shibis iyo Hodan ayay ka qaaday inta kalena waa laga qaaday Boondere Xamarweyne ayana koobkan ka qaaday caawana waxa ka qaaday degmada Dharkiinley ugu dambeyn caawa Dharkiinley way dabaaldegaysaa koobkii degmooyinka gobolka Banaadir 2011 ayaan ugu dambeysay inay ku guuleyso koobka 8 sano way ka oomaneed inay koobkan hanato caawa ayana gacanta ku dhigtay wiilasha degmada Dharkiinley ugu dambeynna waxaan leeyahay hambalyo degmada Dharkiinley oo noqotay championka degmooyinka gobolka Banaadir hadaba haddii aad degmada taageersatay Dharkiinley hoos noogu reeb aragtidaada subscribe inoo saar waa maasantiin